الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسؤال كمدة سؤالها نسوق عليه أوليه قفك مسلم كأه ما قالوا بيا حدي وقال كتش على هذا حرفة أوليه هي درته الحمد لله سؤال عشان واحدة بس حطام هذا المعلومات دويته هذا وريقة يولا لها nimankii ciyaartooy hebel jeclaaday iyagana way gaaloobayaan oo gaal bay jeclaadeen masaladaasi masala khaldan way wadaadka fatwada uu fatwoodana baatil way waxba kama jiro masalada jacaylku waxay qaadataa xukunka sababta waxaa jira gaalo jacaylkoodu sharcigu u ogol yahay laakiin waa jacayl dabiici ah oon ahayn jacayl diineed laakiin qofka haddaad ku jeclaato dembiga iyo macsiyadiisa hadduu muslim yahayna waa dembaabi hadday gaalnimada aad ku jeclaatana iyo diintiisana dee waad ku gaaroobi sharcigu marka koowaad wuxuu baneeyey ninka muslimkii inuu guursado naag ahlulkitaab oo yuhuud ama kiristana ilaahna wuxuu ku tilmaamay labada isguursanaysa wajacala baynakum mawaddatan wa raxma naxariis iyo kalgacayl buu ilaahay dhexdiina dhigay ninka muslimkee loo ogolaa naag gaala inuu guursado ahlu kitaaba xaaskiisa iyo naagtiisa inuu jeclaadana loo ogolaaday oo ilaahayba ka dhigay mawaddatan wa raxma hadduu ku gaaloobayo wax lagu gaaloobaya looma ogolaadeen waxaa labaadoo sharcigeennu faray waalidka in raxmad iyo dabacsanaan lagula dhaqmo waalidka jacaylkiisa maxabada dabiiciga ah qofku uu jecel yahayna waalidku gaalay noqon karaan ilaahay baa yidhi wain jaahadaaka calaa an tushrika bii maa laysa laka bihi cilmun falaa tutichumaa wa saaxibhumaa fi ddunyaa macruufan adduunyada si wanaagsan ugula saaxiib macsiyaha ka yeelin dee gaalnimana kuwa jeclaan maysid oo muslim baa tahay laakiin waalidkii ila dad baa soo islaamaya oo waalidkood ay gaala yihiin walaalahood gaala yihiin qaar baa ilmahooday gaalnimadii kaga harayaan wixii xiriirinta raximtinimada ahaa iyo jacaylkii dabiiciga ahaa ee waalidnimo waa la ogol yahay sharciga adigoon mid diineed ahayn masaladuna waa masalatu lwalaa walbaraa quluwiga lagu sameeya laga badbadiyana waxyaabaha aad u fara badan ee wax lagu gaaleeya wakhtigan dambe masaa'ilulxukmi iyo masaa'ilulwalaa baa ka mid a walaha oo laga badbadiyana oo wax kasta oo sidan waa lagu gaaloobayaa la yidhaahdana asalkeedu waa madhabkii khawaarijta ay dad saxaaba intay la kulmeen su'aal weydiiyaan qoladaa ma necba haddii la yidhahda ay ku diri jireen saa darteed su'aashaasina jawaabteedu waa maya qofka haddaad diintiisa ku jeclaato diintiisuna aynan islaam ahayn waad ku gaaloobaysaa haddii aan wax maanic oo kaa hor istaagoo kala jirin jacaylka dabiiciga ah in inay naagta isjeclaadaan laba isdhashayna isjeclaadaanen diin ahaynna laguma gaaloobo wuu bannaan yahay nusuusteeduna aad bay u fara badan tahay oo masaa'ilulwalaa walbaraa marka laga hadlayo ayaa looga hadlaa intaasaan si kooban uga dhihi karaa waxaana jiray muxaadaro silsilada 3 iyo ahaayo alwalaa walbaraa aan kaga hadlay oon mas'aladan lafteeda dalaa'ilkeeda iyo faahfaahin badan ku sameeyey waana rajaynayaa haddaad naadka ka raadisaan inaad ka helaysaan wabillahi towfiiq